wafdigan uu horkacayay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia iyo qaar kamid ah golahiisa wasiirada ayaa sidoo kale waxa ku weheliyay safarkoodan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda federaalka Ethiopia iyo wasiirka ganacsiga iyo maalgelinta oo uu dhawaan soo magacaabay ra'iisul wasaare Mele Zenawi ayaa soo gaaray magaalada London si ay kulamo ula qaataan jaaliyada iyo waliba mas'uuliyiin kale waxa garoonka ku soo dhaweeyay qaar kamid ah jaaliyada dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo halkan ku sugnaa madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa salaan la dhexmarayay martida soo dhaweysay isagoo aad uga riyaaqsanaa soo dhaweyntiisa safarkan oo ah safarkii ugu horeeyay tan iyo markii la soo doortay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida uu ku yimaado dalkan Britain ayaa waxaan joogaa airportka Heathrow waxaan jeclahay inaan weydiiyo mudane madaxweyne waxaad iga warantaa safarkan halkan aad ku timid muxuu ku salaysan yahay aad baad u mahadsan tahay wuxuu safarkan hadaan kaaga waran wuxuu ku salaysan yahay sidii aan xog isku yeersan lahayn qurbo joogta u dhalatay deegaanka Soomaalida dalka Ethiopia ee ku nool London shir aanu tashiyo oo yani la isku xog weeyarsanayo si horumarka deegaanka ka socda iyo heshiisyadii ka dhacay heshiiskii ururkii UNICEF al-Ittihad iyo kii ONLF Engineer Salih Hamdin Macow heshiisyada aan galay sidii ay u taageeri lahaayeen qurbo joogtu isla markaana horumarka dawladda deegaanka Soomaalida ka socda kaalintooda ay uga qaadan lahaayeen weeyaan sidoo kale madaxweynaha waxa la socda wufuud aad u balaaran oo kamid ah dawladdiisa iyo waliba dawladda federaalka ee dalka Ethiopia sidoo oo soonahay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Mele Zenawi ayaa wax xukuumaddiisa uu soo dhisay sanadkan ku jireen qaar kamid ah Soomaalida sidoo kale waxa la socday wasiirka shaqaalaha iyo waliba arrimaha bulshada sida baad u aragtaa safarkan aad la socoto madaxweynaha runtii safarkan waxa weeye safar shaqo aan ugu talagalay sidii qurbo joogta ku nool dalkan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London aanu xog waraysi uga yeelan lahayn heshiisyadii dhawaantan dawladda jamhuuriyadda federaalka Ethiopia iyo ururada UNICEF iyo ONLF ay gaadheen taas oo aan rabno inaanu si weyn ugu lafagurno safarkan halkan uu ku yimid ayaa ka horeeyay mid uu ku tagay dalka Denmark oo uu kulamo halkaasi kula qaatay madax iyo waliba jaaliyada haddaba safarkaasi muxuu ku salaysnaa safarkii Copenhagen wuxuu ku salaysnaa waa kan wuxuu la mid yahay kan maxaan ku rahay London aan ku nimid oo kale qurbo joogta halka joogtay oo dhalatay deegaanka Soomaalida ayaan kulanay waxaana qaabiyay qurbo joogta u dhalatay deegaanka Soomaalida ee degan Copenhagen si fiican bay nagu soo dhaweeyeen waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxweynaha iyaga noo yimid maanta iyo waftiga balaaran uu hogaaminayay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay una soo dhaweynaa qalbi furan iyo niyad fiican anigoo ku hadlay magacayga iyo magaca jaaliyada waxaan ku soo dhaweynayaa gacmo furan iyo qalbi furan waftigan qaaliga ee ka yimid dalkii hooyo maanta waxa laga joogaa sanad iyo 2 bilood waqtigii uu madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida inoogu yimid halkan isagoo ah hoggaanka nabadgelyada iyo cadaaladda maanta wuxuu socdaa inuu dadka qurbo joogta ku guubaabiyo nabadda iyo maalgelinta dhulkooda Soomaali kor u dhaafaysa 5 milyan ayaa ku nool deegaanada uu madaxweynaha ka yahay mudane Cabdi Maxamed Cumar inkastoo safarkiisii hore ee uu halkan ku yimidna uu ahaa hoggaanka nabadgelyada ee dawladda deegaanka Soomaalida haddaba madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa waxa la soo doortay sanadkan gudihiisa isagoo booqashadii ugu horeysay isagoo madaxweynahana ku yimid dalkan Britain ayaa waxa la ii sheegay inuu la kulmi doono jaaliyada halkan ku nool waxna kulankaas uu ka dhici doona safaaradda Ethiopia ay ku leedahay dalkan Britain maalinimada Sabtida ay fooday nagu soo haysa sidoo kale waxa safarkiisa ku weeliya wufuud kamid ah dawladdiisa iyo waliba dawladda federaalka dawladda Ethiopia oo dhawaan uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Mele Zenawi laba kamid ah wasiiradiisa dabcan waxa la socday wasiirka shaqada iyo waliba arrimaha bulshada Ibrahim Umar Baafe wararka Universal Heathrow Airport London
dhinaca kalena madaxweynuhu cabdi maxamed cumar waxa uu tacsiye u diray isla markuu soo gaadhay magaalada London allaha u naxariiste qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday General Maxamuud Sheekh Cabdilaahi oo ku magac dheera General Geelqaad oo ku geeriyooday magaalada Raaso ee deegaanka Soomaalida ee wadanka Itoobiya sida uu noo xaqiijiyay markaasi kadibna General Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Cabdiraxmaan Guulwade oo imika ku sugan wadanka Imaaraadka allaha u naxariistay waxa uu General Maxamuud Sheekh Cabdilaahi Geelqaad oo ku dhashay magaalada Dhagaxbuur sanadku markuu ahaa 1941 quraanka iyo cilmiga diinta islaamkana isla deegaankaasi ayuu ku bartay dalka Soomaaliya ayuu ka dib yimid halkaasi oo uu ka galay dugsiga dhexe iyo sare oo uu ku dhameeyay sanadku markuu ahaa 1961 ayuu allaha u naxariistay General Maxamuud Sheekh Cabdilaahi waxa uu noqday macallin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee dalka Soomaaliya sanadkii 1963 waxa uu generaalku allaha u naxariistay uu ku biiray Layli Sarkaal 64 waa 1964 waxa uu tababar u aaday kulliyad ku taala wadankaasi Masar oo ku soo bartay culumta taangiyada iyo abaanduulka sanadkii 1977 dagaalkii isagu dhexmaray dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxa uu ka ahaa abaanduule aaga magaalada Diridhaba ee deegaanka Soomaalida ee wadankaasi Itoobiya kadibna waxa uu qabtay jagooyin isugu jira maamul goboleedyo iyo maamulada gobolada iyo degmooyinka ee dalka Soomaaliya Allah u naxariiste General Maxamuud Sheekh Cabdilaahi General Geelqaad waxa uu ka tagay xaas iyo caruur naxariistii janna ee baha ka waraabiya aamin baan leeyahay